Ma isweydiisay cidda dhabta ah ee gacanta ku haysa dhaqaalaha iyo xogta internetka? Ma ahan dowladaha aad taqaane, balse waxaa jira shirkado gacanta ku haya lacagtaada, nolosha bulshada, xitaa sirta aad saaxiibka u sheegan. Maanta muuqaalka waxaan kaga hadli doonaa 5 shirkad ee ugu saameynta badan nolosha bini'aadamka waqti xaadirkan. Halkan waa page-keena cusub ee fahamka nolosha. Waxaan kusoo gudbinaa xaqiiqooyinka iyo xogta caalamka. page-ka follow dhe si aad ula socoto muuqaalada xiga. Waxaan ku bilaabeynaa kaalinta shanaad oo ay fadhiyaan boqortooyada baraha bulshada ee Meta, taasoo la aasaasay sanadkii 2004 markaasoo Mark Zuckerberg ku dhex dhisay qolkiisa jaamacadda Harvard. Maanta shirkadani sanad kasta waxay soo xareysaa dakhli ka badan 170 bilyan oo dollar. waxayna gacanta ku haysaa nolosha bulshada iyadoo isticmaalayso barnaamijyada Facebook, WhatsApp, iyo Instagram. Meta ma ahan kaliya bara bulsho, balse waa sirdoon caalami ah oo garanaya qof kasta oo aad la hadasho iyo wax kasta oo aad xiisayso, taas oo u ogolaanaysa inay xukumaan ra'yiga dadweynaha iyagoo isticmaalaya tiknoolajiyadda ugu dambaysa iyo xogta. Kaalinta afraad waxaa fadhiya shirkadda Amazon oo Jeff Bezos ku dhex dhisay garaash ku yaala magaalada Seattle sanadkii 1994, isagoo markii ugu horreeyay ku bilaabay iibinta buugaagta. Maanta Amazon waxay xukuntaa wax kasta oo gurigaaga soo gala, iyadoo sanad kasta soo xareysa dakhli gaaraya ilaa 570 bilyan oo dollar. waxay ku dhex jirtaa noloshaada iyadoo isticmaalaysa barnaamijka Amazon Shopping, Prime Video, iyo aalada Alexa. sidoo kale waxay leeyihiin barnaamijka Cloud oo inta badan internetka adduunka ku shaqeeyo, taasoo ka dhigaysa inay yihiin kuwa xukuma dhaqaalaha iyo suuqyada caalamka. Kaalinta saddexaad waxaa ku jira Google oo ay aasaaseen Larry Page iyo Sergey Brin sanadkii 1998, markaasoo ay ku dhex dhiseen nidaamka raadinta internetka qol yar ay ka deganayeen jaamacadda Stanford. Google waxay gacanta ku haysaa maskaxda internetka iyadoo sanad kasta soo xareyso in ka badan 300 oo bilyan oo dollar. Google waxay ogtahay meel kasta oo aad tagto iyo wax kasta oo internetka ka raadiso, iyadoo isticmaalayso barnaamijyada YouTube, Gmail, iyo Google Maps. haddii ay maanta damiso Google, adduunka oo dhan wuxuu noqonayaa mid bilaa xog ah maadaama ay yihiin maamulayaasha rasmiga ee macluumaadka caalamka. Kaalinta labaad waxaa fadhiya shirkadda Apple oo ay aasaaseen Steve Jobs iyo Steve Wozniak sanadkii 1976, iyagoo ku dhex dhisay kombiyuutarkoodii ugu horreeyay garaash yar oo ku yaala gobolka California. Maanta Apple waa mid ka mid ah shirkadaha adduunka ugu lacagta badan, iyadoo sanad kasta soo xareysa dakhli gaaraya 380 bilyan oo dollar. Apple waxay dhistay nidaam xiran oo noloshaada ku wareegsan iyagoo isticmaalaya mobilka iPhone, iPad, MacBook. Apple ma ahan kaliya shirkad taleefanno soo saarto, balse waa quwad dhaqaale oo go'aamisa jihada ay u socoto tiknoolajiyadda caalamka iyo qalabkan ku xiriirno maalin kasta. Ugu dambeyntii waxaan gaarnay nambarka koowaad oo ay fadhido shirkadda BlackRock oo uu aasaasay Larry Fink sanadkii 1988, waana boqorada aamusan oo inta badan lagu arkay warbaahinta sababtoo ah ma iibiyaan alaabaad dukaamada ka iibsan karto, balse waxay maamulaan hanti gaaraysa 1 trilyan oo dollar, taasoo ka dhigan inay saami ku leeyihiin ku dhawaad shirkad kasta oo abiskooda taleefankaaga ku haysato ama dukaamada aad ka iibsato. BlackRock waxay adduunka ugu tariyaan si qarsoon iyagoo isticmaalaya nidaamka Aladdin oo ah maskax macmala oo falanqeysa dhaqaalaha caalamka, taasoo ka dhigtay in xitaa dowladaha ugu weyn iyo bangiyada tala weydiiyaan iyagoo go'aamiyo jihada dhaqaalaha adduunka u socda maadaama ay yihiin quwadda dhabta ee ka dambaysa daaha, taas oo maamusha nolosha iyo lacagta dadweynaha weli ayagoo maqal magaceeda. sidaad aragtay, 5 shirkadood ma ahan kaliya ganacsiyo, balse waa kuwa xogta iyo dhaqaalaha internetka maamula, laga soo bilaabo macluumaadka gaarka ilaa lacagta adduunka wareegta. shirkadahani waxay gacanta ku hayaan xogta bini'aadamka. adiga ma u malaynaysaa in mid ka mid ah shirkadaha Soomaaliya ay heerkan gaari doonto mustaqbalka soo socda? nooga reeb fikirkaaga qaybta faallada.